Bismillah. Subtracting with a like denominator is kala goynta jajabka leh hooseeya isku mid ah. Halkaa maanta waxaan ku duubaynaa cashir ku saabsan sida loo kala gooyo jajabka leh hooseeya isku mid ah. Kala goynta jajabka leh hooseeya isku mid ah waxaa muhiim ah saddexdan qodob. Qodobka koowaad, jajabka hore waa inuu ka go'i karaa kan dambe si jawaabtu u noqoto mid aan ahayn nusqaan ama aan wadata calaamadda ku dar. Waxaan ka wadnaa inuusan nusqaani jirin oo kan kala goyntaasi aysan ahayn nambarka soo baxa nambar leh calaamadda negative wata inuusan noqon ama calaamadda minuska. Qodobka labaad waxa weeye kala goo sarreeyayaasha keliya, hooseeyaashana mid ka mid ah ayaa laga qaadanaya oo hooseeyo looga dhigaya jawaabta. Qodobka ugu dambeeya waxa weeye haddii loo baahan yahay in la fududeeyo oo u jirto nambar kor iyo hoos u qaybsamo, u qaybi si jawaabtu u noqoto heerka ugu hooseeya ee fududeynta. Halkaa waxaan ku dhigaynaa example aan ku muujinayno oo kan buggana siinaya ku qoran. Bugga labada qaab ee aan u samaynayna waxa weeye midna waa qaabka kalka ah oo sida hadda uu muujinayo. Kalna macnaha waxaan ka wadaa wax taagan ee aan ahayn wax jiifa. Midna waa jiif oo taxane ah, midna waa kal oo wax taagan. Waxaan ku hormayaa marka midka koowaad. oo tusaaleheena koowaad ah. Waxaan haysanaa 9 loo qaybshay 13. Waxaynu ka goonaynaa 4 loo qaybshay 13. Qaabkaas hadda aan u dhigayo ee taagnida ah waa kal. Marka aan kala goonayno marka sarreeyaheena koowaad waa 9, hooseeyaasheenuna waa isku mid labadaba waa 13 iyo 13. Sarreeyaheena labaadna waa 4. Waxaan kala goonaynaa labada sarreeye keliya. Markaan kala goonayno kalarkana waan bedelaynaa. Waxaan leenahay waxaan kala goonaynaa waa 9 iyo 4. Jawaabta noo soo baxaysaa labada markaan kala goono 9 laga gooye 4. Hooseeyana waxaa u noqonaya 13. 9 markaan 4 ka gooyo waxaa ii soo baxaysa 5 loo qaybshay 13. Ma fududeyn karaa? May. Haddaba haddaan fududeyn karin waxaan ku daynayaa halkaas. oo calaamaddaas waxaan ka wadaa halkaas ayay ku egtaa jawaabtu. Tusaalaheena labaad ee weliba aan u samaynayna qaabka kalka. Waxaanu haysanaa nambar isku dhafan oo ah 20 11 loo qaybshay 18. laga jaray 4 5
loo qaybshay 18. okay sidii hadda markaa daayta tusaalahan sameynayna wuu ka yara duwan yahay kan oo jajabkeenu ma ahan mid quman maahan mid quman maaha kan kii hore wuxuu ahaa jajab quman oo sareeyaashu ay ka yaraayeen hooseeya hadda waxaan haysnaa jajab isku dhafan oo number caadina wata jajab qayb ahna wata markaan tan sameynayna marka kala goontu hadaayta waxay sareeyaasha kaliya hadda kala goontu waxay aadaysaa sareeyaasha iyo labada number ee dhinaca yaala ee midna 20 iyo midna 40 ayaan kala goonnaa marka hore waxaan ku hormaraynaa labada number ee dhinaca yaala midna 20 ah midna 40 ah ayaan kala goonaynaa marka waxaan leenahay 20 laga gooyay 4 waa 16 waa jawaabtaas oo waxaan kala goonnay labada number midna 20 iyo midna 40 sida data aan sameynay sareeyaashan waa kala goonaynaa sareeyaasha kala goonaynaa marka waxa waa 5tii 11 iyo 5tii 11 markaan 5 kan jaro waa 6 hooseeyaashana sida hore aan soo sheegnay mid kaliya ayaa laga dooranaya haddaba waxaa inoo yaala qodobka markaan dhameyno inaynu isweydiino ma fududeyn karnaa jawaabteena haa xagee ka eegaynaa inaan fududeyno waxaan fiirinaynaa qaybteena fractionka 6 iyo 8 ma jiraan number aan qaybin karno dabcan wuu jiraa waa 6 loo qaybshay 18 maxaan u qaybin karaa marka waxaa labadaba u qaybsamay 6 sababtoo 6 way u qaybsantahay 6na 18 waa u qaybsantahay jawaabtu soo baxaysa marka maxay noqonaysaa 16 sidii inuu noogu oolayaa 6 u qayb waa 1 18 u qaybina waa 3 halkaa waxaa ku eg jawaabtii kama dhamaystiray waxaan sameynaynaa example kale oo kala socdo oo saddexaad oo buugana siinayo waxaan haysanaa 10 su'aashana waa 10 7 loo qaybshay 12 waxaan ka goonaynaa 4 5 loo qaybshay 12 haddaba sidii aan example-kii labaad u sameynayba tusaalihii labaad u sameynayba waxaan kala goonaynaa labada number ee horgalaha ah 10 iyo waxaan kala goonaynaa 4 halka waxaa inooga soo baxaya 6 waxaan kala goonaynaa 7 iyo 5 ayadana waxaa inooga soo baxaya 2 12kana maadaama isku mid yihiin mid baan ka dooranaynaa waxaa inoo soo baxay jawaab ah 6 2 loo qaybshay 12 ma fududeyn karnaa waa su'aasha taala marka haa maxaa yeelay fududeynta waxaan ka eegaynaa qaybta jajabka ah ma jiraa number 2 iyo 12 labadaba u qaybsami karaa waa 2 waxaan leenahay 6 sidee baan u soo qoraynaa 2dii waxaan u qaybinaynaa 2 kale qaybtii sideedii baan u dhigaynaa 12kii waxaan u qaybinaynaa 2 waxaa noo soo baxay marka 6dii markaan sideeda u qorno 2 u qayb waa 1 12 2 u qaybina waa 6 halkaas waxaan ku dhammaynay fududeyntii
jawaabtii aan ka helnay kala goyntii 7 loo qaybshay 12 oo laga gooya 4 5 loo qaybshay 12 waxaan u gudbaynaa page-ka labaad ee casharkan bogga 8aad iyadoo fiirinaynaa inaan ka sameyno hal ama labo waxaanan rabnaa maadaama kan uu samaysan yahay qaab tax kii hore kal buu ahaa kana waa tax kii hore wuxuu ahaa jajab loo kala goonaya si isku hoos qoran kan laakiin waa taxan yahay marka midna waxaan ka sameynaynaa caadiga u qoran midna waxaa la socda erayo marka waxaan rabnaa erayadaasna waxay rabnaa ka hadalno ayagana aan sameyno marka waxaan sameynaynaa midda koowaad kan waa tax qaabkan taxda ah su-aasha koowaad haddaan ku hormaro waxayna leedahay 12 6 loo qaybshay 7 laga gooyey 3 4 loo qaybshay 7 sidii hadday taan sameynaynay labada nambar ee horgalaha waa kala goonaynaa labada sareeyaashana waa kala goonaynaa hooseyaashana mid baan ka dooranaynaa waxaan kala goonaynaa marka oo ugu horeeya waa 3 12 iyo 3 kala goonaynaa markaan 12 ka gooyno 3 jawaabta noo soo baxaysa maxay noqonaysaa jawaabta noo soo baxaysa waa 9 waxaan dhigaynaa xariiq muhiim waa qaabka aan u qorayno mar walba inaanu ilaalino waxaan kala goonaynaa hadda 6 iyo 4 6 ka goo 4 waa 2 waxaa noo soo haray hooseyaasha kala goon mayno mid baan ka dooranaynaa waxaan fiirinaynaa ma fududeyn karnaa wax ka dhaxeeya 2 iyo 7 ma jira waa may hal unbaa labadaba u qaybsami kara mar hadduu yahay qaybsamaha labada nambar u qaybsamaya hal yahay jawaabta halkaasi ku egta intaa ma dhaafsiin karno su-aasha labaad ee aan rabaa in aan sameeyo waa su-aasha 21 waan rabaa inaan casharkan raacsho su-aasha 21 waxay leedahay qaabkeeda ayaan u soo qorayaa subtract ayaa nala yiri 27 7/8 from 27 7/8 su-aashan aad bay u fududahay waa laba nambar oo isku mid ah oo labada la kala goonayo jawaabtana haddii laba nambar isku mid ah kala goonaysid waa 0 oo waa iska garan karnaa laakiin waxaan rabnaa erayadan macnaha ay ku fadhiyaan inaan fiirino mar walba oo aad qorayso marka muhiimaddan cashar qaybtan u aadaya waxay tahay qaab u dhigga su-aasha in ay muhiim tahay in la fahmo labada nambar marka aan sameynayo kee hormaraya oo kee wax laga goonaya oo horgalaha noqonaya muhiimaddaas daawa nambarka ay la socoto ereyga from ladnibad color kalan saare nambarka from la socoto mar walba wuxuu noqonayaa nambarka bidixda xigaya ama kan wax laga goonaya ama kan weyn way
marka waxaan dhahayaa waa 27 maadaama ay isku mid yihiin inkastoo aan samayn doono tusaalahan xiga laakiin hadda waxaan u dan leeyahay in aan muujiyo sida loo kala dhigayo laga gooyay kan dambe subtractiga wata ayaa dhinacan maraya oo kana waa kii fromta watay fromta ku la socday waa kana waa kii kale oo 27/7/8 oo kan oo subtractiga watay ama kala goyn answerku marka waa laba number isku mid waa 0 hadda marka waxaan aadaynaa numberka 24aad numberkan waa page-ka uu ku yaalay 21 waaye waana page-ka ama bogga 8aad waa isla boggii lewa laakiin waxaan aadayaa su'aasha 24 baan sameynaya su'aasha waxay leedahay from 32/15/16 subtract marka qaabka ay u dhigan tahayba waa qaabkii diyaarka ah oo kii fromta xigay ayaa horeeya laakiin hadday ahaan lahayd sida su'aasha 25aad 15ka that's better aan kaas ku bedelno page-ka su'aasha 25 okay 25 aan ku bedelayna marka waxaan leenahay fromta wuxuu xigaa 15ka ayaa la socota marka waxaan dhahaynaa 15 3 loo qaybshay 8 laga jaray 8 hal loo qaybshay 8 qaabka u dhigayna sidaa waa kana waa kii 15ka waxaa la socotay from kan kalena subtract marka markasta muhiimadda hadalkan aan ku celcelinaya wuxuu yahay in numberka kani fromtu la socoto oo macnaha la socoshada waxaan ka wadaa from baa qoran haddana waxaa ku xiga numberkii baa raacsan kaasaad horgalaha noqonaya hadda marka waxaan samaynaynaa marka kala goynteena caadigeed waxaan kala goynaynaa 15 15 markaan 8 ka gooyo maxaa ii soo haray waa 7 3 iyo 1 ayaan kala goynaya waxaana ii soo haraya 2 8 iyo 8 hal baan ka dooranay intaa waxaa ii xiga ma fududeyn karaa yes waa la fududeyn karaa waxaan qorayaa 7 2 loo qaybshay 2 wada qaybsanta 8dana 2 u qaybinaya maxaa soo haraya waa 7 sideeda u qoro 2 u qayb waa 1 8 4 u qaybina 8 2 u qaybina waa 4 fadlan waxaa muhiim ah in aan ka shaqeyno dhammaan su'aalahan homework ah ama page-kan si tartiib aan uga shaqeyno halkaan waxaan ku joojinayaa casharkii maanta halkan